إلهي مهدي ويه أنك حوق قف نقوم مقوني كرتا أما حولها كم مراد سكرتا أما مصلحة يدا كله مكرتا مركا هوري ما جرتا هورتا أنك بغينا لكن مسير كأمدان دوريني مصلحة الصومال نمان دوريني ديغان كان دوريني أيضا أول با أن واحد دينا لقوم معمولين بابل إيو وحل لقوم معمولين حدنا أساقي إنا لكدو الميقوم دولق هذا كرنو waxaan leenahay ummadana dhageysanaysa dadka aan ka soo jeedno iyo madaxda Soomaaliyeed wixii Soomaalnimo ku jirto waxaan ka codsanaynaa in arinta baraaw la soo faragalsho sababtoo ah madaxdii ugu sareeyada isugu timid oo digil iyo mirif ku abtirsata waxayna uga tageen iyo qoryaha isugu dhiibeen ay dagaal uga tageen iyo wixii laasheen dad Soomaaliyeed baan nahay annagu caruurtayada iyo deegaankanaga inaan ku dheelno ma rabno sameecadayada inaan ku cayaarno ma rabno adoonsi inaan yeelno ma rabno wax badan aan dul qaadanay wax imbriyaalada oo aan la arago la maqal oo cunsuriyada ayaan wax badan u dul qaadanay oo isla baray dhali saadan baa la waanin waxba isku la falin waxba ka dhici dad baa sixi dawlad baa dhalan wax badan baa sheegnay jiritaankanagii baa markii qatar galay waana iscayminaynaa hadda oo qofna ka yeeli mayno inayna adoonsado qofka yeeli mayno waxa yimiday maaragtay madaxdii ugu sareysay dawladda koonfur galbeed waxaan u sheegaynaa dal iyo dibad Soomaalida joogta dawladda dhexe cid aan ka qarinayna ma jirto intii wax garada ee Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa madaxda koonfur galbeed ugu sareysa in ay baraawo timiday dadkii deganaay oo isjeclaay oo walaalaha ay oo shaaha wada cabaayay isku dirtay kana tagtay suuxana maanta saacada cadii la hadlaayo yaa wasiirkii arrimaha gudaha oo diyaarad ka raacay intuu isku diray ummadii maaragta hadii Ilaahay ku samoogol yahay waxaad Soomaalidu tiraahdaa maaragta hadii Ilaahay ku samoogol yahay labadii isjeclaantooda ad ka yaabto waxba la isugu daraa waxaan banaan baxan ku dhawaaqa doonaa magaalada geeskeeda afarteeda geesa mara doonaa taariikha ka dhiga doonaa laakiin waxaan leenahay warqadan shalay falsification ko meesha ka qoreen warku waxay noo tahay warqad madaxweynaha gadaashiisa la qoray asna iclaamane ana la ogeene oo waxay noo tahay fidna laga abuuri baraabo loo tala galay anay taho hadduu madaxweynaha ongol ka yahay warqadaas anagu in badan baan waxaan sugaynay dadka meesha degan baraawo dad wax u qaybiya oo dawlad ah in badan baan waxaan ka hadalnay social media iyo meel walba waa naalna anagu haddaan nahay maxaa tiri waxaan oga jawaabaa codsigeena iyo sida aan ku nahay deegaanka iyo qaybtaan ku lana waan weynay arintaas waxa ka dambeeya gudoomiyaha baarlamaanka علي سيد فيها كدام بيرنتاس عد كلا وما هي سلاسة كدام بيا علي سيد فيها مركو واحد رباح وديسه دوبيو ماشي وجيل أصلا الغربة أنا جو هذا وان سماي كرنا قلت ديجان ماشي جون وسماي كرنا ما ملنا وسماي كرنا oo beesha maxaa tiri ah dhibaato fara badan bay ku qabaan deegaankan oo cusurinimo ah cusurinimadu waa shayga ugu xun oo qof bil aadan lagu la dhaqmo xaqiiqda dhabta ah maxaa tiri ayadoo tira badan anagoo odayaal ah ayaan ka jifa ahaan waxaan ugu tagnay gudoomiyaha baarlamaanka markaan arrimaha golaha deegaanka aan kala hadlaynayna wuxuu nagu yiri meeshaanu galbahaarayna ma ahan caabud waaqna ma ahan garowna ma ahan xaqiiqda dhabta ah anagoo 500 oo sano meeshan degan qolada ugu yarna 75 dadkii la keenay ay yihiin ayaa nidaamka noocaas ah loogu dhaqmay qabaa'ilada kale oo maxaa tirada ana sidaas iyo si ka daran in la yiri gobolada dhexe ma ahan meeshaanu marka dhibaato badan baan tirsanaynaa waxaan leenahay oo cod dheer aan ku leenahay waxa meeshan laga raadinayaa waa isku dhac bulsho weeye Soomaali waa istaqaana wax la kala waxaynaya ma lahan
sadbursina waa la ogsoon yahay waxa dalka meesha uu gaarsiiyey waa qoomiyadda baabuurka caanaha baqaarka hilibka qoomiyadda ka soo jeeday oo codka maxaa tiri ku abtirsaysay annaga reer baraa baan nahay dhalatu aan nahay da'da aan ku jirno baraa baan ku dhalanay da'daanaan ku gaarnay kuwaan annaga dhalna kuway dhaleen adduunyo qabiyo waayo ayadoo ee tahay in maanta nugula qori tago laaji waayo in nugula qori tago habeenkii xalay ahayoo taga waayo haddii cirka iyo dhulka isku yimaadeen annaga nugulama isma karo